sideed dilaaga aamusan oo burburin kara guurkaaga. Inta badan waan iska indhatiraa hanjabaadaha aamusan ee xiriirkeena. Waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood aynaan ka warqabin si ula kac ah oo aan ula kac ahayn, ama mararka qaarkood waxaan rabnaa inaan iska indhatirno iyaga si ula kac ah iyaga. In la iska indhatiro calaamadahan waxay leedahay saamayn dheer. Xidhiidhka labada lamaane xoojiya wakhtigu wuu sii yaraanayaa, jacaylkii ay hore isu qabeen ayaa si tartiib ah u sii dhammaanaya. Tani waxaa laga yaabaa in aanay ka iman hal dagaal oo weyn, balse ay ka timid dilaayaasha aamusan ee maalinlaha ah ee lamaanuhu u muuqdaan inay iska indhatiraan. Halkan waxaa ah 8 calaamadood oo khiyaano leh oo burburaya oo si tartiib ah u burburin kara guurkaaga. Qabashada ilka halkii aad ka hadli lahayd. Dareenka aan la sheegin inta badan waa la dhalaaliyaa kadibna wuxuu keenaa xanaaq. Tani waxay abuurtaa derbi aan la arki karin oo u dhexeeya lamaanayaasha. Niyad jabka mana baabao, halkii waxay ku ururtaa wakhti kadib. Koritaankan shucuureed waxay u horseedi kartaa midba midka kale dabeecad aan fiicnayn, midba midka kale ka tago, iyo xitaa xanaaq yar iyo xanaaq. Haddii aad rabto in xidhiidhkaagu noolaado, u fur lamaanahaaga oo la wadaag aragtidaada si naxariis leh. Ka hormarinta baraha bulshada ee lamaanahaaga. Dada dijitaalka ah, doorashada shaashadaha wakhtiga isku xidhka la wadaago waxay ku hadashaa mug weyn. Waa mid ka mid ah arrimaha ugu badan ee la iska indhotiray, haddana la iska indhotiray, oo inta badan aanay ogaan lamaanayaal badan. Ku dhex wareejinta Instagram-ka inta lamaanahaagu isku dayayo inuu kula hadlo ama la wadaago maalintooda waxay soo diraysaa fariin cad. Ma tihid muhiim sidaad u malaynayso. Xiriir kasta, in si dhab ah loo wada joogo midba midka kale, waa asaaska xiriirka dareenka. Daleecaynta lamaanahaaga, xataa siyaabo yaryar. In midba midka kale tilmaamo ceebihiisa ha ahaato kaftan iyo ha ahaato si qarsoodi ah, weli waa dhaleecayn. Sababtoo ah lamaanahaaga ayaa iska cadaya hal mar macnaheedu maaha inay mar walba samayn doonaan. Xataa hadallada yaryar sida, mar walba tan ayaad ilowdaa, waxay ka dhigi kartaa qof inuu dareemo inaan qiimo lahayn haddii uu marar badan maqlo. Iyadoo mararka qaar jawaab celin wax ku ool ah ay caafimaad qabto, si joogto ah inaad u doorato lamaanahaaga waxay meesha ka saaraysaa kalsoonidooda, waxayna dhaawacdaa kalsoonida wakhti kadib. Mahadnaqa oo la dayacay. Way fududahay in la sameeyo dhaqdhaqaaqyo maalmeed, sida samaynta sariirta, diyaarinta cuntada, ama bixinta taageerada niyadeed si run ah. Laakiin wakhti kadib, maqnaanshaha mahadnaqa waxay ka dhigi kartaa lamaanahaaga inaan la arki karin. Mahadsanid fudud ayaa wax weyn ka tari karta in qof la dareemo in la arkay, la qiimeeyey, lana jecel yahay. Mahadnaq, marka si joogto ah loo muujiyo, waxay xoojisaa isku xidhnaanta shucuureed. Isbarbardhigga lamaanahaaga kuwa kale. Isbarbardhigga waa cadowga aamusan ee xiriirka. Ku cabirida lamaanahaaga kuwa kale haddii ay tahay saaxiib ama qof caan ah, waxay dhaawici kartaa kalsoonidooda waxayna abuuri kartaa ammaan darro. Iyadoo aan loo eegin ujeedadaada, waxay soo dirtaa fariinta inaysan ku filnayn. Halkii aad diiradda saari lahayd waxa ay ka maqan yihiin, qiimee sifadooda gaarka ah una gudbi rabitaankaaga si xushmad leh. Male, dilaaga xiriirka ugu weyn. Haddii aad u malaynayso in lamaanahaagu uu had iyo jeer fahmi doono, iyada oo aan la xidhiidhin, waa cadaalad darro. Inaad ka filayso inay qiyaasaan waxa khaldan ama akhriya maskaxdaada kaliya waxay dejisaa marxaladda isfaham la'aanta. Caddayntu aad bay uga jacayl badan tahay filashooyinka aamusnaanta ama ka noqoshada shucuureed. Isgaadhsiinta daacadda ahi waxay dhistaa buundooyin, halka malo awaalku abuuraan nusqaamo xagga shucuureed oo sii balaadha wakhti kadib. Iska indhotirka baahiyaha dareenka lamaanahaaga. Ma u malaynaysaa in bixinta taageero dhaqaale ay ku filan tahay? Mar kale ka fakar wehelnimada shucuurtu waa sidaas oo kale. Marka lamaanahaagu uu werwarsan yahay ama ka bato, inaad iska caddayso sidii riwaayad ama niyadda ayaa si weyn u dhaawaci karta kalsoonidooda. Xaqiijinta dareenkooda, xitaa haddii aadan si buuxda u fahmin, waxay kobdhisaa saaxiibnimo iyo ammaan shucuureed. Ka fogaanshaha khilaafka halkii la xalin lahaa. Lamaanayaal badan ayaa aaminsan in ka fogaanshaha dooda ay ilaalinayso waxyaabaha nabdoon, laakiin arrimaha la aasay ma luminayaan. Niyad jabka aan la sheegin ayaa daaha oo dhisma, sugaya wakhtiga saxda ah si uu u qarxiyo. Ka fogaanshaha isku dhaca waxaa laga yaabaa inay fududaato muddada gaaban, laakiin waxa ay horseedaa fogaan shucuureed oo fog. Iska horimaadka caafimaadka qaba, marka lagu xalliyo naxariis iyo ixtiraam, wuxuu xoojiyaa xiriirka halkii uu daciifin lahaa. Cilaaqaadku uma baahna kaamil, waxay u baahan yihiin joogitaan, dulqaad iyo dadaal. Marka labada lamaane ay sameeyaan falal yaryar oo istaba joog ah oo jacayl iyo isfahan, xitaa dildilaaca ugu qoto dheer waa la hagaajin karaa.